halkan aan ku suganahay waa cusbitalka guud ee deegaanka Soomaalida ee Referral Hospital waxaana yaala dhaawaca 8 ruux iyo dhimashada 7 ruux oo ku soo waxyeeloobay dagaaladii shalay gabaldhacii ka dhacay deegaanada Tuli Guuleed iyo sidoo kale Baabuli dagaaladaas oo u dhaxeeyay qoomiyadda Oromada iyo Soomaalida waxaana telefishinka caalamiga ah ee Universal waanu waraysi la yeelanay qaar ka mid ah dadkii dhaawacyada ahaa ee ku soo waxyeeloobay dagaaladii shalay gabaldhacii ka dhacay deegaanadaasi waxayna nooga warbixiyeen xaaladooda caafimaad ee ay dadkaasi ku sugan yihiin ya adu ilaahiga bixiyay niman meel guus joogay ilaahiga bixiyay saasay nafteedana ku badbaadeen gacantan ma joogo gaarsi caafimaadkayga maanta ilaahay ma iga fiican waxa joogay 3 qof kuwii kale way baxsadeen marka la eego deegaanka joogteen ma shacab baad isleynayeen mise ciidamo caadi isleynayeen ma ciidamo caadi oo wax leynay gursunka yimid qeyraa ooga annagu gudaha iyaga intay ka tageen bay calan la yimaadeen maalinkii ka horreysay calankii joojiyeen calankii aan ka fajinay sidii markaa duulimaad bay igu yimaadeen maalinka dambe aniga duulimaad gaadma igu yimaadeen anoo beeraasho magacayga waxaa la yidhaha Cabdilaahi Aadan Sugaal Cabdilaahi waxaan noo warbixisa dhacdadii meesha ka dhacday iyo dagaalkii qabiilka labada qabiil u dhaxeeyay Oromo iyo Soomaaliya u dhaxeeyay qolada fanooda ay nagu xasuuqaysay iyo ninkan ku dhaawacmay dagaalkii ka dhacay banka meesha la yiraahdo Dacwaley ee xasuuq ka dhacay 7 nin mid ku yaalan buu la jiray halka waxa laayay qolada Oromiya ay fanooduna taageerayso marka saas ku dhaawacmay lagu keenay meedkuna ku yaala meesha 7 qof meedka buu la socday oo isna dhaawaci kaliya la socday baamiya waas la jiray sagadaas deegaanada ay arintu ka dhacday imika hawsh ka jirto xaalkeed meesha lagu dagaalamay shalay oo kale waa sidee maanta qudheeda meeshii uu shalay ka dhacay meel ku dhowbu aad dagaalku uga socdaa jiriile iyo koorile iyo dhulkaas maanta aad uga socdaa meel yar u jirta marka laakiin meeshii shalay toole caalam bay ku taagan weyna taagan yihiin qoladii Oromada xaaladii caafimaadka eegana waxay igu hadhay laagta dheer baa igu dhacday xabadii haddii qofta igu dhacday laagta dheer baan ku dhacday dhabarkii iyo meelahaas ha igu tabay waxaasi mooyee qoftani waa ladnahay adeer dhinaca kale boqolaal ka mid ah shacabweynaha ku dhaqan magaalada Jigjiga oo soo buux dhaafiyay barxadda weyn ee cusbitaalka Referral Hospital ee magaalada Jigjiga oo muujinaya baroordiiq ay ku muujinayaan dhibaatada soo noqnoqotay inta badan ka dhacda xuduudka ay wadaagaan Soomaalida iyo Oromada ayaa iyaguna dareenkooda ku cabiray bal qaababka ay u arkaan dhibaatooyinka soo noqnoqonaya ee ka dhacaya deegaanadaasi ka taxsiyeynaya dadkii walaalaheen ahaa ee Soomaalinimada loo dilay ee laga kala keenay degmada Tuli Guuleed qabaleeyadeeda iyo Baabuli dhammaan intii ehelkii ay ka baxeen samiriye imaan baan leeyahay dadka wax kale looma dilin Soomaalinimo loo dilay magaca lagu dilay waxaan leeyahay in xukuumadda madaxweynaha cusub ee Mustafa Maxamuud Cumar waxaan leeyahay dadkan waa dadkaagii dadkan la leynaya waa dadkaagii dadkan dirraba lagu leynaya waa Soomaali wax ay dhimeen ma jirto haddii dhibaatada inagu aan wadna dhinaceennana in la qabto hadday iyagu wadaanna in la qabto ta kale waxaan ku darayaa iyadana cadiifada iyo waxba looma baahno inaan isdejinno oo ka innagayna dhex yaalana ilaalinno oo nabadda aan ka shaqayno iyo inagoo dhimanayna haddana nabadda aan ka shaqayno dawladdu inta ay ka arkayso hadday federaal tahay hadday kilal tahayba maxamed cabdi baa la yidhaahdaa marka hore horta waxa weeye maanta ama deegaankeenna ama gobolka Faafan ama degmada Tuli Guuleed dadka ka soo jeeda horta runtii baroordiiq baan u joognaa shalay toole waqtigiisii aroortii bay galeen ceel xamar meesha la yidhaah ama ceel Soomaali meesha la yidhaah waxa weeye dagaal kiyo annagu aan isdhigannay oo madaxweynaheenii cusbaa amarkiisii aan qaadanay ra'iisul wasaarihii Itoobiyana aan qaadanay dhulku waa nabad Oromiyo Soomaali waa walaal la yidhi oo wada xereysana wixii la lahaa soo jeedba aan dhigannay ayuunbaa shalay toole la bilaabay reerka qabalaha ha la bilaabee waxa nagaga sii daran ciidan baa yaala feedhacad ciidan baa yaala Tuli ciidan baa yaala Geelboob
wax gurmada man waan weyne wakaayaga marka ciidankaasi muxuu ahaa ciidanku waa ciidankii deeyaha dhiida federaalka way joogeen tuli way yaalliin feedhacad way yaalliin geelboob way yaalliin gurmad waxa ka soo yeedhin ma jirto saasaa lagu xasuuqay raggan magacaygu waa deeqa cali ismaaciil anoo magaca soomaaliyeed ku hadlaya waxaan ka hadlayaa soomaalida xaqdarrada lagu xasuuqayo ee mar walba xaqdarrada lagu dilayo iyagoo guryaha jooga la soo doonanayo ee la xasuuqayo wax gurmada iyo wax gargaara midna ayna haysanin waxaana xasuuqaysa oo soo doonanaysa waa ooramada weeyaan bismillaahi raxmaani raxiim innaa lilaahi wa inna ilayhi raajicuun anoo ku hadlaya magaca islaamka haddana hooyo soomaaliyeeda waxaa aad iyo aad maanta qiiro iigu ah ama qalbi xanuun iigu ah meyd la soo dilay oo wiilkii inta la dhaawacay haddana meydkiisii dab lagu dhex riday innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun soomaali weyn iyo islaamba meel kasta ood joogtaan waxaan niga codsanaynaa dad islaama oo dhibaataysan baannu nahay dal iyo dibad inta joogta islaamnimo inaad nagu gargaartaan maaha markii ugu horraysay dhacdo caynkan oo kalea ay ka dhacdo dhulka ay degaan soomaalida iyo oromadu waxayna tani qayb ka noqonaysaa dagaallo sababay dhimasho iyo dhaawac iyo barakac fara badan oo ka dhacay xuduudka u dhexeeya soomaalida iyo oromada najiib cabdiweli cabdixiis telefishinka caalamiga universal magaalada jigjiga